Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaam dhammaantiin meel kasta joogtaan. Kusoo dhawaada videogeena maanta oo idin soo diyaariya anigoo ah Cali Maxamed Ismail Cali Baashi. Insha Allah videogan waxaa kula wadaagi doonaa 6 qodob ama 6 shay oo aad iyo aad muhiim inoogu ah in aan sameyno ka hor intaan la gaarin Ramadaanka. Hadda xilligan aan videogan duubayo waqti yar ayaa ka dhiman Ramadaanka, maalmo kooban, laakiin waxaa fursad u haysataa in aan maaragtay qayb ka mid ah ama dhammaantooda qodobadan in aan maaragtay wada fuliso hadduu ilaa raalli ka noqdo. Insha Allah ilaa dhammaadka videogan haddii aad sii daawato waxaa kula wadaagi doonaa dhowr kaloo qodob oo ayakana aad iyo aad muhiim u ah in aan sameyno Ramadaanka intaan la gaarin ka hor. Waa haddii aad tahay qof shaqeeya Yurub joog ama qurbaha joog, qodobadan ugu dambeeya aad soo qaadan doona ayakana waa aad iyo aad muhiim u yihiin. Okay, qodobka ugu horeeya oo u baahna in aan la nimaano ka hor intuusan Ramadaanka bilaaban waa niyya. Waa in aan la nimaanaa niyad wanaagsan oo aan niyadsanaa in uu Ramadaanka insha Allah si wanaagsan inoogu dhici doono oo maaragtay bilow ilaa dhammaad caafimaad anagoo qabno inoo dhammaan doono. Sidoo kale aan niyadsanaa in maaragtay Ilaahay inuu waafajin doono Laylatul Qadarka oo aan maaragtay niyadsanaa in acmaasheena insha Allah nalaga aqbali doono oo dambigeena maaragtay meeshaas lagu tirtiri doono. Waa inaan niyadsanaa oo niyad wanaagsan aan la nimaano marka hore. Qodobka labaad waa in aad iska soo gudaa haddii lagugu lahaa maalmo Ramadaan sanadkii hore ama Ramadaankii hore haddii wax kaa tageen oo maalmo lagu leeyahay, waa inaad iska gudaa intuuna soonkan kale uusan bilaaban insha Allah. Okay, qodobka afraad waa in aad samaysataa plan waa inaad la timaadaa. Plan markaan leeyahay ma aha in aad maaragtay aad suuqa tagto oo aad maaragtay frinjeerka soo buuxsato hilib iyo sambuus iyo basal maaragtay inaad soo buuxsato ma ahan. oo waxaa ula jeedaa plan inaad samaysto haddii maaragtay aad ahayd qof wax addiction ku ahaa sida anigoo kale waxaa addiction ku ahay ama aad iyo aad ugu addict ku ahay maaragtay kafeega badana cabaa. Marka hadda maalmihii ugu dambeysay waxaa ku jiray maaragtay system ama oo maaragtay plan oo markaasi kafeega hoos ugu dhigay maaragtay meesha 4 koob ka cabi jiray 2 koob baa ka dhigay. hadda beri ugu dambeysay waxay ku socotaa hal koob. waana sii kala fogeeyey. Marka haddii adigana xoogaa waxyaaba qaarkood addict ku tahay, waxaa fiican Ramadaanka ka hor in aad maaragtay yareysaa inta hal mar joojin lahayd oo madax xanuun maaragtay maalmaha ugu horeeya Ramadaanka oo aad la jiran lahayd ama aad la jiifi lahayd. waxaa fiican ka hor Ramadaanka in aad maaragtay soo yareysaa oo plan fiican u sameysaa. sidoo kale waa inaa maaragtay qorsheysaa ama barnaamijyo maaragtay xumaatada faafin jirtay waa inaa caado ka dhigataa oo plan u sameysaa in aad yareyso in aad barnaamijyadii xumaa ku jirtay ama haddii ahaan lahaayeen xan ama waxyaabo qaarkood in aad maaragtay aad yareysaa oo aad joojisaa. Qodobka shanaad waa in aan badinaa akhrinta Qur'aanka. haddii aad akhrin jirtay 1 page ama 2 page ama 1 aayad ama 2 aayad, markaan waa in aad kusii dartaa wax yar oo maaragtay ka badisaa sidii aad ku socotay. haddii aadan akhrin jirin waa inaa marka hadda sii bilowda maaragtay ugu yaraan page ama 2 page ama wixii markaas aad awoodo si maaragtay Ramadaanka markuu bilowdo aad maaragtay u akhrisaa beejyaal badan ama juz ama xisib u gaarsiisa markaas. Okay, qodobka lixaad oo ah kii ugu dambeeyay videogeena maanta oo haddana aad iyo aad muhiim ugu ah in aan la nimaano ka hor intuusan Ramadaanka bilaaban waa in aan la yeelanaa ama la nimaanaa discipline fiican oo aan ka fogaanaa wax kasta oo soomkeena naga burin kara. Okay, waxaad samayn kartaa si fudud in aad YouTube qorto wacdiyadii hore raadin kartaa, update ayaa isku samayn kartaa waxyaabaha soomka burin kara. haddii aad rabto qoraal ahaan waa u akhrisan kartaa, buugaagtii hore raadin kartaa oo maaragtay diiniga oo waxyaabaha soomka buriya lagu sheegay. sidoo kale haddii maaragtay cuntada aad ku xumeed ama dabeecad xun aad lahayd ama caayda ama aflagaadada ama xanta waxyaabahaas u dhan aad ku xumeed waa inaad iska daysaa oo aad joojisaa waxaasoo dhan ka hor intuusan Ramadaanka bilaaban insha Allah. Okay, markaan waxaa soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay videogeena maanta. sida hore idinkaga ballan qaaday waxaa idinla wadaagi doonaa 3 qodob kale oo bonus ah oo maaragtay aad iyo aad muhiim u ah inaad la timaado ama aad sameyno ka hor Ramadaanka insha Allah. Okay, qodobka koowaad bonuska koowaad waa haddii aad tahay qof shaqeeyo oo awooda inuu gurigiisa ka shaqeeyo. marka waxaa fiican inaad dalbataa xilliga koronana waa lagu jiraa in aad dalbato in aad guriga ka shaqeyn karto xilliga Ramadaanka ama bisha Ramadaanka oo dhan in aad guriga ka shaqeyn karto. waa haddii aad awoodaa oo aad leedahay waa lagu ogolaanaya oo shaqadaada maaragtay ay ku siinayso inaad guriga ka shaqeyso. waa muhiim inaad sii dalbataa ka hor intaan Ramadaanka la gaarin. qodobka labaad waa haddii aad tahay arday ama macallin ama qof shaqaale ah waa inaad sii dalbataa fasax maalinka ciidda. haddii aadan ogeyn maalinkii kusoo aadayso 2 maalin ama 3 maalin oo laga yaabo inay kusoo aado, fasax sii qaado
ka hor intaan ramadaanka la gaarin si maaragtay waqti fiican ay kambanigaada ama shirkadda ka shaqeysa ama iskuulka oo usii diiwaan gashto inaad maqan tahay maalinkaas hoosta ha kasoo gelin maaragtay waqti fiican usii sheeg. Qodobka ugu dambeeya oo optional haddii aad rabto waa samayn kartaa, haddii aad rabto waa ka tagi kartaa, waa inaad dharka ciidda waqti fiican sii gadato. Waqti ramadaanka badanaa dadka waxaa moodaa in ay ku tartamayaan dharka ciidda inay gataan, inkastoo wadamada qurbaha dadka jooga ee maaragtay dukaamadooda ay ka dhamaan alaabta. Laakiin haddii Afrika joogto ama meelahaas kale aad joogto oo maaragtay dharka ee dhammaan karaan, fadlan sii gado dharkaada ciidda, meel sii dhigo. Maalinka ciidda marka la gaaro waxaa haystaa adeegaadii iyo wixii dhan waa haystaa markaas oo ciidda ku saabsan, haddii ahaan lahayd hadiyado iyo waxyaabahaas oo dhan. Okay, videogana maanta waan kusoo qaadanay 6 qodob oo aad iyo aad muhiim inoogu ah inaan la nimaano ka hor intuusan ramadaanka bilaaban. Intaas ayaa kusoo koobina insha allah. Intaan video ka bixin waxaa jeclaan lahaa inaan ugu caawiso like-ta, subscribe aad noqoto, asxaabtana aad la wadaagto si ay kan ugu faa'iideystaan. Waana mahadsantihiin. Waa anigoo ah Cali Maxamed Ismaaciil Baashi oo idin leh waa inoo mar kale insha allah.